baraashka weyn ee lagu magacaabo weeca bedisata ama baraashka Langubali waxaana dhismihiisa la bilaabay bishii 7 sanadkii 2017 laguna wado in dhismihiisa la dhameystiro bisha December ee sanadkan 2018 waxaana dhismaha biyo xireenkani gacanta ku haysa shirkad laga leeyahay dalka Turkiga oo shaqaaleysiinaysa shaqaale xirfad leh oo reer Djibouti baraashkani ayaa laga dhisayaa dixda weeca gaar ahaan malkada Langubali waxayna u jirtaa caasimadda Djibouti 30 kilomitir biyo xireenkani ayaa ah mid ay baaxadiisu aad u weyn tahay waxaana loogu talagalay in lagu saleeyo dhismihiisa qaabka piramidka biyo xireenkani ayaa baarkiisa sare oo dhulka ka sareynaya 42 mitir halka koonihiisa kale ee Deberswarkuna ay dhulka ka sareyso 38 mitir sidoo kale waxa biyo xireenkani cadaadka hoos loo qoday baaxad ahaan ilaa iyo 350 mitir oo ah qiyaasta ummadaha dambe ku fadhiyo halka ummadaha sarena cadaadka hoos loo qoday ilaa iyo 635 mitir biyo xireenkani ayaa guud ahaan dhulka loogu talagalay in ay biyuhu fadhiistaan ay tahay qiyaastii 4 kilomitir oo biyuhu joogsanayaan wuxuuna biyo xireenkani qaadi doonaa 14 malyan oo mitir kiib oo biyaha roobabka iyada oo aan ogsoonahay in roobabku ay ku yar yihiin dalkeena halka dhinaca kalena ay jiraan in ay roobab lixaad leh ka da'een dalkeena sanadadii 1994 iyo 2004 kuwaasi oo keenay daadad lixaad leh oo waxyeello u geystay caasimadda Djibouti taasoo dixda Xumbuli ay biyuhu dul mareen kaabada hakadna u galay isku gudubka gaadiidka iyo dadweynaha iyada oo daadadkaasi ay ku gabagabaysmeen badda waxa haddaba aan waraysi goobtaasi aan kula yeelanay laba ka tirsan shaqaalaha hawsha ka wada biyo xireenkaasi mas'uulna horta waa mas'uul weyn oo balaaran oo faa'iido badan ku fadhiya iyo mustaqbal badan ku fadhiya waxaan ka xaynaa wixii onshan jiro dhan hadii ay tahay baabuur shofeera hadii ay tahay excavator hadii tahay waxba deela kala lahayn weeyaan shaqada waxa kamid ah booyada imka aan dhex fadhiyay arkaysi mar iskruuda soo baxdo shaqadeeda iskruuda baa lagu dhiibay mar waxa soo baxda onshan wixii excavator leedahay oo amuudka ku gurta baabuurta wallahi waxa la qabtay badan yihiin ma soo koobi karno iminkaan waxa sameeynaa sida bondka oo kale buurta oo kale iminka premier etage baa soconnaa oo xaqan iminka qaraacayo kale waa premier etage-kii deuxième etage-ku waa ka xaqan guudkayga weeyaan troisième bajriya quatrième bajriya ilma cinquième etage weyn oo xilliga noqoto waxa buurta ilma buurta waxa isku xiray miir ba ka kacaya miirka dibadeed waxa imanaya oo mutaasoonkii kala kacaya hadana si gargaar miir ku helo labada kuuti warag walaaladiina oo Turkiga la shaqeynaa wallahi aad bay u fiican yihiin aad bay ugu dhagal udul yihiin oo si fiican baa wala sheekaysanaa wax baahidi wixii jiro dhan inoo sheegan waa qabanaa wadaba isku geeyo mashruucan oo ay dhisayso shirkad laga leeyahay dalka Turkiga ayaa faa'iidooyin badan xambaarsan isaga oo biyihii caasimadda dhibaateynayay ee badda galayay ka qabanaya isaga oo keedinayana biyo dhan 14 malyan oo mitir kiib si looga faa'iideysto dhinaca beeraha iyo si loo helo biyo kayd ah oo dhulka gala si biyo looga helo ceelasha Nab Freatiga Djibouti ee sida ceelasha ku yaala Balbala Nagaad iyo kuwa kale ee ka agdhowba